Waxaa cirka isku sii shareeraya dagaalka u dhexeeya boqorka raabka Ilka Case Qays iyo sidoo kale Alfanaan Sharma Boy oo labaduba ah raabistayaal heesaha raabka qaada. Dagaalka suugaaneedkan baraha bulshada ku dhex maraya Sharma Boy iyo boqorka raabka Ilka Case Qays ayaa yimaaday kadib markii fanaanka ahna boqorka raabka Ilka Case Qays uu soo qaaday hees karbaashkeed isla markaasna la garan waayay jihada ay u socoto. Hase yeeshee heestaasi markuu soo qaaday Ilka Case Qays ayaa waxaa hees degdeg ah soo qaaday fanaanka Sharma Boy, waxaana uu sheegay in heestaasi ay karbaash ku tahay shakhsiyaad uusan magac dhabin. Hase yeeshee bulshada inteeda badan ayaa waxay u fasirteen in heesahaasi kulkulul uu soo tuuray Sharma Boy ay jawaab u tahay hees Ilka Case uu soo qaaday isla markaasna heestaasi ahayd karbaash aanan jiha la aqoon u socotay. Dagaalka Sharma Boy iyo boqorka raabka Ilka Case Qays ayaa bulsho fara badan oo Soomaaliyeed u arkaan mid dhab ah maadaama labadan fanaan markuu midba hees soo saaray midka kale kasoo daba qaadaya hees karbaash ah. Labadan raabistayaal ayaa waxaa loo arkaa inay ku tartamayaan saaxadda raabka Soomaaliya, xilli labadoodana ay yihiin laba qof oo magac ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed. Hase yeeshee Ilka Case Qays ayaa raabka soo waday tan iyo sanadii 2010, waxaana bulshada Soomaaliyeed ee dhageysatay heesaha ay u qirsan yihiin inuu yahay shaqsiga ugu wanaagsan uguna khatarsan ee abid qaaday heese raab ah, waxayna u yaqaanaan boqorka raabka. Boqorka raabka Ilka Case Qays ayaa waxaa xilligan bulsho fara badan oo Soomaaliyeed ay hadal hayaan dagaal suugaaneedka ku dhex maraya baraha bulshada isaga iyo wiilka yar ee sanadihii ugu dambeeyay kasoo ifbaxay magaalada caasimadda ee Muqdisho ee Sharma Boy. Sharma Boy ayaa hees karbaash ah soo qaaday kadib markii hees la magac baxday Kaahiye uu soo qaaday fanaanka Ilka Case Qays, waxaana heestaasi markii ay saacado ku jirtay YouTube-ka jawaab iyo sidoo kale hees kale oo ayada u dhiganta oo karbaash ah soo qaaday fanaanka Sharma Boy. Hase yeeshee heestaasi dadka komitiyada ka dhiibtay ayaa badanaa waxay u badnaayeen inay u arkayeen inay dagaal suugaaneed uu labadan fanaan ka dhex qarxay. Hase yeeshee Ilka Case Qays iyo Sharma Boy oo laba qof oo kala magac ah isla markaasna labaduba ah shakhsiyaad caan ah balse raabka marka loo eego ay kaga kala jiraan kaalmo aad u kala sarreeya. Maadaama Ilka Case Qays loo qirsan yahay inuu yahay boqorka raabka isla markaasna uu yahay shaqsiga raabka Soomaaliya laga soo gaaray, maadaama uu ah shaqsigii ugu horreeyay heesta raab qaada isla markaasna bulshada ay dhageysato. Qaadista heesaha raabka ayaa waxaa Soomaalida marka la yiraahdo qaadista raabka ay u qirsan yihiin Ilka Case Qays, maadaama uu fanaankan qaaday heese caan baxay oo raab ah isla markaasna dareenka qofka dhageysta heesahaasi uu aad u kicinayo. Halka Sharma Boy oo ah wiil da'yar kana soo ifbaxay sanadihii ugu dambeeyay magaalada caasimadda ee Muqdisho, dhowr hees oo qaadan ay saameyn ku dhex yeelatay baraha bulshada, uu isku arka asagana inuu yahay boqorka raabka isla markaana uusan jirin raab kale cid uu kala dhexeeyo. Balse saacadihii ugu dambeeyay ayaa bulsho fara badan oo Soomaaliyeed waxay ku arkayeen social media dagaalka la sheegayay inuu ka dhex qarxay labadan fanaan, balse labada fanaan ayaa kala ah laba qof oo magac iyo sidoo kale kaalinba isku meel aan soo geli karin, maadaama ay yihiin laba shaqsi oo aad u kala weyn marka la eego xilliyada ay fanka kusoo biireen iyo sidoo kale heesaha ay qaadeen marka la fiiriyo macnaha ay ka turjumayso iyo sidoo kale hadallada ku jiro. Ilka Case Qays ayaa badanaa waxay Soomaalidu u arkaan inuu yahay shaqsi marka raabka la yiraahdo aan lagu haysan, laakiin looga fiican yahay qaadista heesaha caadiga ah. Boqorka raabka Ilka Case Qays iyo Sharma Boy oo ah wiil da'yar isla markaasna ah fanaan taageerayaal fara badan leh ayaa bulsho fara badan oo ku xiran labadooda iyo sidoo kale dhageystana heesaha kuna xiran baraha bulshooyinka iyo social media ayaa waxa ay u fasirteen maadaama markuu midba hees soo qaado kan kale kaga soo jawaabaya heestaasi si degdeg ah inuu labadan qof kala dhexeeyo dagaal. Maalintii shalay ahayd Ilka Case Qays ayaa soo saaray heesta la yiraahdo Nafaqeyso oo ereyo kulkulul ay ku jireen sida ereyo ay ka mid yihiin bastard iyo waxyaabaha la midka ah, halka Sharma Boy uu soo qaaday asagana hees ay u muuqatay inuu asagana ku karbaashay Ilka Case Qays. Haddaba heesta uu soo saaray shalay Sharma Boy ayaa isla markiiba bulshada Soomaaliyeed u arkay in ay jawaab u tahay Ilka Case Qays,
maadaama marar hore labadan fanaan markuu mid hees soo qaaday kan kalena maalmo kadib kasoo dabagelin jiray YouTube-ka. Markuu soo qaaday heestii Kaahiye Ilka Case Qays ee karbaashka ahayd, ayaa isla markiiba si degdeg ah waxaa isagana hees u soo qaaday fanaanka Sharma Boy. Halka markii heestaasi muddooyin taalayna, markuu maalintii shalay ahayd Ilka Case Qays soo qaaday heesta la yiraahdo Nafaqeyso, isla markaasna noqotay hees baraha bulshada si weyn uga dhex yeelatay saameyn, ayaa isagana waxaa hees degdeg ah soo qaaday fanaanka Sharma Boy. Haddaba daawadayaal, dagaalkan ka dhex qarxay labadan fanaan ayaa wuxuu u muuqdaa mid qarsoon, xilli kalimaha suugaaneed ee isweydaarsanayaan marka la fiiriyo ay yihiin kuwo aad u culus, ayna ku jiraan heeryo aad u kulul. Heesta Nafaqeyso uu soo qaaday Ilka Case Qays ayaa waxaa ka mid ah ereyada heestaasi Bastard ayaa tahay iyo waxyaalo la mid ah, waxaana heestaasi ay bulsho fara badan ereygaasi aadka u kulul ee Bastard ay u arkeen inuu ula jeedo Ilka Case Qays, isla markaasna uu ku karbaashayay fanaanka da'da yar ee reer Muqdisho ee Sharma Boy. Haddaba daawadayaal, dagaalkan ka dhex qarxay labadan shaqsiye caanka ah ayaa waxa ay bulsho fara badan oo Soomaaliyeed u arkaan mid ay ku heshiiyeen, isla markaasna ay ku kala kicinayaan saaxadda raabka ee sii dameeya, maadaama ay labada fanaanba ay yihiin laba qof oo taageerayaal aad u fara badan leh, inkastoo ay fanka muddo aad u kala dheer ay ku kala soo horeeyeen. Haddaba daawadayaal, markii aad raab maqasho, waxaa dhagaha ku soo dhacaya Ilka Case Qays, maadaama ay Soomaalidu u taqaano Ilka Case boqorka raabka. Qaadista heesaha raabka uu qaaday fanaanka Ilka Case Qays ayaa soo socday tan iyo 2011, markaasuu fanka ka bilaabay magaalada caasimadda u ah waddanka Kenya ee Nairobi. Haddaba daawadayaal, dagaalka Sharma Boy u dhexeeya boqorka raabka Ilka Case Qays ayaan arki doonaa saacadaha iyo maalmaha soo aadan sida looga falceliyo iyo inay ka hadli doonaan labadooda. Halka fanaanka Sharma Boy la filayo in YouTube-kiisa cusub ee Sharma Boy kuna xiran yihiin ku dhawaad 30,000 oo qof, uu soo dhigi doono muuqaal uu kaga hadlayo dagaalkan laga dhex buunbuuninayo baraha bulshada ee u dhexeeya isaga iyo Ilka Case Qays. Waxaana la filayaa marka uu muuqaalkaasi soo duubo inuu bulsho fara badan oo Soomaaliyeed kaga xaqabtiri doono in dagaalkaasi uu yahay mid xaqiiqo ah iyo in kale. Haddaba daawadayaal, muuqaalkan ayaan uga hadlaynay dagaalka u dhexeeya Sharma Boy iyo sidoo kale boqorka raabka. Haddaba dagaalka Sharma Boy iyo u dhexeeya Ilka Case Qays wixii ka soo kordha bartan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa, balse waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso, sidoo kalena nagu soo biirto oo subscribe saarta channelka, kambalelkana aad furato si ay kugu soo dhacaan muuqaaladan soo gelino.